booqashada xildhibaanadu waxay ugu korgelayeen deegaanada SSC waxa ay ku sugan yihiin haddaba xildhibaanadu markay booqdeen ceelka shidaalka holhol halkaas oo ku jiro ceelka shidaalka weyn Soomaaliya oo kurgalka xildhibaanada ayaa ay ku sheegeen inuu ceelkani yahay ceelka kaliya ee Soomaaliya leedahay mustaqbalka oo ay u siman yihiin ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaba waa kuwan xildhibaanadu iyagoo ka hadlaya haddaanu nahay xildhibaanada qaranka iyo mas'uuliyiinta waxaanu dul taaganahay ceelka la yiraahdo holhol waa ceelkii Konoko qodaysay waxaanuna joognay muddo hadeerto saacada ah waxaana laga yaabaa inaanu maanta ku nasanno sidoo sheegay xildhibaanka iga horeeyay waxaan dul taaganahay ceelkii holhol waxaan rajaynaynaa ilaa muddo inaan joogi doono insha Allah marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta wasiirada lagu soo dhaweeyay maanta holhol meesha aanu taaganahay waxa weeye ceelkii holhol waana meesha hadda aanu taaganahay oo aan gacanta ku hayo waana kan beebkii waana kii ay shirkadda Konoko qodaysay waxa ayaan daraa bariyahan dambe oo dhan waxa imanayay shirkadda DNO oo laga leeyahay dalka Norway dhibaatada deegaankan haysataana waxa weeye waa khayraadka waxa la isku haysto dhibaatadu ay uga dhacayso dhibaatooyinka faraha badan la koobi karin waa bogcadda aynu taaganahay oo ah ceelkii shidaalka holhol ee shirkadda Konoko ay qodaysay aad iyo aad baan ugu mahadsannahay wixii kale oo dheeraadana waxa ku dari doona mas'uuliyiinta ila holhol ee ku yaalay nugaal ee ummadda Soomaaliyeed aan inteeda badan aqoon aanay u lahayn waa meeshan Soomaalidu ay laga cadeeyay waa meelaha kaliya ee la cadeeyay in ay khayraad badan sida petroolka uu ku jiro ee laga muujiyay adduunyada oo dhan waxa iska leh orantii ay meeshan caan ku tahay khayraadka hadda laga sheekeeyay waxa la filayaa inuu yahay mustaqbalka dalka Soomaaliyeed waxa la filayaa inuu yahay mustaqbalka dadka deegaankan leh salaatu wasalaamu ala rasuulillah sida ay u sheegeen xildhibaanadii iga horeeyay halkan waa ceelkii holhol khayraadkiisa bari hore la cadeeyay la confirm gareeyay aanan u aragno dhibaatooyinka hadda ka jira gobolkan iyo deegaankan inuu isagu sabab u yahay sababta insha Allah waxay ku dhamaan doontaa xaqay ku dhamaan doontaa sida xaq ah dadka iskala unbaa khayraadkana leh ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu ka dhaxeeyaa wixii aan Soomaali rabin baa uu ka qadaya laakiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu ka dhaxeeyaa isku soo wada duwa booqashadan kala duwan ee xildhibaanadu ay sameynayaan ayaa ah sidii dadka deegaanada SSC ay wax uga qaybsan lahaayeen ummadda Soomaaliya Cabdiqani Maxamed Axmed Cabdiqani fantastic Kalson TV Garowe